ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay in ka badan 20 kalena way ku dhaawacmeen dagaal tan iyo saaka ka socda deegaanka Dacdheer oo u dhaxeeya xadka kala qaybiya gobolka Galgaduud iyo Itoobiya dagaalka ayaa salka ku haya aanooyin qabiil iyo dhul ay isku haystaan labada dhinac ee dagaalka u dhaxeeyo qaar kamid ah dadkii ku soo dhaawacmay dagaalka Dacdheer ayaa la soo gaarsiiyay isbitaalka guud ee degmada Cadaado sidoo kale waxaa jira dhaawacyo la geeyay isbitaalka degmada Cabudwaaq ee waqooyiga gobolka Galgaduud dhinaca kale maamulka Galmudug ayaa ka hadlay dagaalka tan iyo saaka ka socda deegaanka Dacdheer wasiirka arrimaha gudaha Galmudug Maxamed Nuur Xayir oo warbaahinta kula hadlay Cadaado ayaa ugu baaqay dhinacyada diirta u dhaxayso inay dagaalka joojiyaan sharuud la'aan waxaan halkaan baaq nabadeed uga dirahayaa dadka walaalaha ee ku dagaalamaya magaalada Dacdheer dagaalkaas oo saan isleenahay iskaga dhacay si maaragtay aan aqli ku jirin waayo waxa weeye dagaal maanta la dagaalamo faa'iido ma keenayo 30 sano Soomaaliya dagaal ku jirtay wax laga faa'iiday iyo cid maanta oran karta waan ka faa'iidana ma jiraan marka waxaan codsanaynaa dagaalkaas in la joojiyo say tahayna loo joojiyo sababtoo ah dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho lagamana faa'iido hadda wax faa'iido oo dagaal laga gaaraya ma jiraan waa la dhimanayaa waa la dhaawacmayaa hadhowna meesheeda la joogaa dadku waa dad walaala waa dad ehla waa dad qaraaba waa dad abti iyo habaryar iyo abti isku ah waxa weeye wax marka laga faa'iideeyo maadaama dad darisa weeye intaasoo sanana meel ku wada noolaa marka waxaan codsanaynaa dagaalkaas in la joojiyo dadka duulaanka qaadan ay ku noqdaan guryahoodii iyo meesha ka soo duuleen wada hadalna la furo oo dadka wada hadal loo furo ka wasaarad ahaan aanu ka qayb qaadan doono dagaalkaas asaga insha Allah hadii la yiraahdo madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Gelaxaaf oo isagu ku sugan Dhuusamareeb qadka telefoonka kula hadlay Honkable TV ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay diyaar u yihiin joojinta dagaalka ka socda deegaanka Dacdheer doonayeen baa u jeediyo dagaalka beesha Dacdheer iyo ka socda wixii kale beesha ka jira in nabad la raadiyo dadkaas si u deganaadaan wixii dhintay Allah u naxariisto wixii dhaawac Allah caafiyo laakiin in dagaalka la joojiyo dagaal meel lagu gaari maayo waa waqti kulul wixii la soo marayaan dib loogu laaban baa la rabaa aad iyo aad baan ugu baaqayaa dadka carrada jooga kuwa u gurmanaya iyo kuwa hadda dagaal ku jira intuba inay dagaalka joojiyaan baan u jeedinayaa waa garta marka laga soo gudbo baaqa ka maamul ahaan maxaa idin qorshaysay inaad ka qabataan dagaalka ka socda ee deegaanka Dacdheer waa dadaalaynaa odayaal iyo wixii aan diri karno waa diraynaa wixii ka sokeeya oo xuduudan ku jirana waxaan marka laga soo tago baaqyada madaxda Galmudug ee ku aadan joojinta dagaalka ma jirto cid ku baxday hakinta dagaalka tan iyo saaka ka socda deegaanka Dacdheer Sharmaarka Maxamed Maxamuud TV-ga caalamiga Honkable magaalada Cadaado